بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مسؤولين تا كلا قدسن isugu jira heer qaran heer gobol iyo heer degmo ururada bulshada ee dhammaantood ah beelweynta mudulood hay-adaha kala gudbisan ee regionalka dhammaantiin kuwa xilka hadda haya iyo kuwa hore u hayay dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa sharaf ii ah maantay beelweynta mudulood inaan kala soo qayb galo munaasabadan dib u heshiisiinta iyo isu dumidda ummadda ah oo runtii aan ognahay dadaalka dheer oo loo soo galay anigoo jecel inaan halkaan ammaan uga soo jeediyo walaalihii tabliiqinayay yacni gobashan suuragalnimadeeda cid walba la hoos fariistay cid walba ku qanciyey kana dhaadhiciyey gogasha oo bilowgeedii dadka qaar ay shaki iyo wax ka qabeen inay shaki lahayn oo dan caam ah oo ummadeed ay tahay ku qanciyey kuwaas ayaan rabaa inaan uga mahad celiyo mahad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay u sugnaatay bacdallah runtii waxaan dhihi karnaa wax kasta oo wanaagsan oo ilaahay ka raalli yahay oo aan laga daalin sidaan ayaa loogu guulaystaa marka cid kasta oo wanaag ka shaqaynaysa waa tusaale ay ku dayan karto maantay dadaalkii ay galeen shakhsiyaadkii walaalaha ahaa oo arrintan in muddaa ka soo shaqaynayay miraheedii waa muuqdaa waxaana rajaynayaa sida kulankan iyo maxabbadan iyo midnimada hadda muuqata ay u bilaabatay inay u noqoto mid sii socota oo loo aayo biidni illaahi alkariim walaalayaal waxaan garan karaa munaasabadan ballaaran ee mas-uuliyiinta ballaaran ay isugu yimaadeen inaanan kelmad dheer ku lahayn ayaan garan karaa balse waxaan rabaa wixii ay ila tahay oo kooban inaan halkan ka soo jeediyo arrintan waxaan u arkaa inay tahay fursad ummaddu maantay ay ku dardaarmi karto oo ay ku ballami karto waxaan rabaa miraha ka soo baxa inay noqdaan kuwa aan si fudud loo beerdarayn oo aan la sii dayn waxaan rabaa in ay noqoto mid ay ka dhalato masaalix ummadeed oo loo aayo oo bulshadu ay wada ilaashato bulshada halkan isugu timid maanta bulshaweynta mudulood waxaan ognahay kala daadad walba oo dhinac kasta ah inuu jiro hadday ahaan lahayd xagga horumarka iyo hadday ahaan lahayd xagga siyaasadda intaba iyadoo isxambaarsan ayay gogoshaan aan rajaynaynaa inay noqoto mid meel kasta oo dabcan lagu dhuujiyo biidni illaah ummada walaalayaal sida aan wada ognahay ummada waxay ku horumartaa talo midaysan ayay ku horumartaa waxay ku horumartaa mabaadi lama taabtaana oo ay wada ilaashato inay leedahay marka laga shaqaynayo siyaasaddu maalinba midabay leedahay maalinba siyay u taallaa siyaasadaha waxay la macno tahay amay u qaab eg tahay sida caqliga bani aadamka oo u kala duwan yahay ayay siyaasaduna u kala duwanaataa marka waxaan u baahannahay yani masaalix dhaqaale oo bulshadaanu ay leedahay oo aan marna raacin isbeddelka siyaasadeed aan marna raacin
qof kasta oo siyaasi ah oo ama beeshan ka dhashay ama Soomaali ahna oo og yahay oo nagu dhowro inay jirto ayaa laga maarmaan waxaan aaminsanahay biidhnillaahi alkariim wax badan oo hadda naga dabcan inay noo toosayaan wax naga xumaadana ay yaraan doonaan haddii aan arrintaas aan la nimaado marka walaalaha dadaalka dheeraadka ah sameeyey gogashaan suura geliyey aan ognahay culeysyada ay kala kulmeen ha ku qancaan hadafkii ay lahaayeen inuu maantay u suura galay waxaan kaloo aan rabaa sida ay u qabteen hawshaas ayagoon masaalix shakhsi ah ka lahayn inay sideeda u hoggaamiyaan ayagoo kaashanaya mas'uuliyiinta kala gidisan ee beelweynta hadday ahaan lahaayeen kuwa culimmada ah hadday ahaan hoggaanka culimmada ah aqoonyahanka kale hoggaankooda hoggaanka dhaqanka hoggaanka siyaasiyiinta hadda xilka haya iyo kuwa xilka ka degay sida aan ognahay xilku waa meerto waa isu dhiib laakiin waa inay jirto kan xilka haya iyo kan xilka ka degay iyo kan qabad doona wax ay wada dhowraan oo beeshaanu ay leedahay waa inay jiraan walaalayaal waxaan aaminsanahay haddii arrintaas sida aan u tilmaamayo dad iga fahmi og oo iiga sii fara dhuudhuuban ayaa jira haddii sidaas loo daraasadeeyo sidaasna loo dhaqan geliyo inaan gaari doono hadafka iyo waxa beeshaanu ay mudan tahay oo ay gaydo mararka qaarkood walaalayaal mararka qaarkood waxaa dhaca ama soo dhici jiray waxyaabo tala xumo ama tala la'aan ku yimid oo runtii aan u qalmin ummaddan marka waa uga mahad celinayaa walaalaha Soomaaliyeed ee beelweyntan ka dhashay ee arrintaas dareemay ee dadaalka dheeraada u galay waxa kale oo sidoo kale u mahad celinayaa walaalaha kale ee markii arrinta loo soo bandhigay ee soo dhaweeyay kaalinta muuqatana ka qaatay oo ay kow ka tahay ganacsatada Soomaaliyeed ee beelweyntan ka soo jeeda runtii ma qabsoomi karo isu imaatin ama shir noocan oo kale ah oo aan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinac walbaba aan laga kaabaynin waxaan rabaa halkan inaan mahad uga soo jeediyo mahad celin uga soo jeediyo khaliif cabdulqaadir macalin nuur maxamed siyaad oo aad og tihiin tabliiqintii ay wadeen tiimkaas mid kale oo culimanimo inuu ku sii dul waday isla markaas ay muuqato doorka shariifka ah oo uu ka istaahilo beeshan oo noo suura geliyey mawlacan iyo majliskan wanaagsan ee muxtarimka ah runtii inaan maanta isugu nimaado noo suura geliyey mar walbana kaalintiisu ay muuqato ayaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo walaalayaal ma rabo inaan warka ku dheeraado mas'uuliyiin badan oo iga mudan ayaa iiga dambeeya balse waxaan rabaa kelmaadkaygan inay wax oon mataqaanaa laga qaato ay jiraan taasoo aan rabaa inaan mar kale ku celiyo masaalixda ummadda waa inaan gaarno haddii rabbi idmo si loo xaqiijiyo masaalixda ummadda mabaadi la wada dhowro oo ummaddaanu leedahay oo danaha ummaddan lagu horumariyo hadday ahaan lahayd danaha reer miyiga iyo danaha dadka tabaalaysan ee danyarta ah ee beelweyntan ka soo jeeda masaalix lagu dhowro oo cid walboo naga midaho ou dhowrto oo siyaasigu dhowro oo culimmadu dhowrto oo dhaqanku dhowro oo qayb kastoo bulshadu ka midaho ay dhowraan ayaan isleeyahay waa ka dhiman yahay halkaas marka waxaan rabaa inaan intaa ku koobo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu